السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بأصحاب تقاليق كحران NMBU تسور دوادا هدي أدنقو عصبتاي بليز سبسكرايب لايك كومنت شير قنباليل كانت تابو سياد مالي والبنو لا سعودتو جيليسكا أما قنباليل كسادو تقاند فرو maanta maxaan idiin wadnaa maanta walaalaha qaaliga waxaan wadnaa sharaxaad gurigaaga sharaxaada sulaysid ama kadar saad u taqaanid wax yar oo fudud laga sameeyay oo gurigaaga ku dhex samaysan kartid soo dhawow sidaan u sameynana la soco kana faa'iideyso insha Allah maxaynu u baahannahay alaabta laga sameeyay xabagtaas aad u baahan tahay dhalaalkaana waad u baahan tahay kalarkan waad u baahan tahay maranjigaas aad ku buufin doontid kuulahaas aad u baahan tahay hot glue-gan aad u baahan tahay waxaad u baahan tahay qalin iyo burush yar oo dhuuban waxaad u baahan tahay waraaqaha waaweyn ee foorto ama adigu waraaq weyn oo si fiican kugu duubmi karaysa wata waraaqin bilaabaynaa sidaynu u duubayno tan gees baynu ka duubaynaa mar walba waraaqaha sida loo duubayo la soco si aad u fahanto qalinkaad ku duuban doontaa si ay si qurux badan kuugu duubanto sidaa markaad u duubtid xabagta waxaad ku dhajinaysaa hot glue-ga si fiican bay isugu dhagaysaa waxay ku noqonaysaa wax dhuuban oo dheer wakaas ta kalena waxaad ka duubaysaa dhinaca balladhka afar gees baad u duubaysaa qalinka saa ay u leegtahay waraaqda baad u duubaysaa waraaqa badan ma soo duuban doonaa laakiin saddexda qaab aynu kala duubayno baan idin tusaynaa marka wakaa iska sin marka hore waraaqda duubitaankeeda bilaabaysid ina geesna ka dheeraan geesna ka sinaanin wakaas si fiican markaad u duubto waxay ku noqonaysaa waraaq yar oo gaaban oo afar geesa tii hore kana yara buuran hot glue-ga si fiican u mari wakaa saasay kuu soo baxaysaa dibad ka ogaanaysaa si waxay ku kala duwayn marka la sameynayo ta kalena waxaad ku duubaysaa sida dheer baad u duubaysaa waraaqdu dhinaca ay u dheer tahay baad u duubaysaa wakaa qalinkana mar walba duubista kuu qurxinayo si isku siman kuugu duubaya si fiican wakaa qalinkana ha ku iloobin mar waa lagu iloobaa hot glue-gaaga si fiican u mari markaa si ay kuugu xabagaysanto waraaq adag kuugu noqoto wakaas saddexdaa qaab baan waraaqaha u duubanaynaa haddii kadarkaad sameynaysaa uu yahay kadar weyn waraaqo waa inay intan ka dhadheeraadaan hadduu mid iska kooban yahay kanoo kale aan sameynaynana inahan baad leekeysiin doontaa waraaqo badan baan duubtay waa kuwan inta kugu filan adaa garanaya markaa kolba kadarka qiyaastiisay ku xidhan tahay tallaabada labaadaynu qaadayna waa inaan soo buufino waraaqaha kalarkooga soo bedelno waxaa kaloon kaaga digayaa inaanad guriga dhexdiisa ku sameynin ranjiga bannaanka inaad ula baxdid balakoonkaaga ama meelaan carruurtu urteeda soo gaari karayn ma fiicna waayo ranjiga urtiisu caafimaadka uma fiicna dadka xasaasiyaddii waxaa qabaan way dhibsadaan markaa wakaa markaan si fiican usoo buufino waraaqahan waxay noqdeen dahabi ama golden saad u taqaanid wakaa waxaa kale aynu u baahanay markaa kuulaheena inaynu kalarayno anu kuulo wada cad baan haysanaa markaa haddaad kuulo kalar kale haysatid way kaaga fududahay haddii kalena xabagtan baad yara marinaysaa dhalaalkaad ku shubaysaa dahabi baad ka dhigaysaa kuulahaaga dahabiga markaad ka dhigtid ee diyaarsatid intaas waraaqiyo kuulaha hadda ayaynu bilaabaynaa kadarka saynu u sameynaynay waa afar gees maanta kanaynu sameynayno wakaa waraaqaha qaybtii sida dheer aan u duubay labada dhinac baa la geliyey labada dhinac gaagaabanna waa dhinacyadii gaabnaa ee kadarka laga soo jarayay wakaa shiibka yara quruxda badan buu kuu soo baxay sida intaa markaad samaysid hot glue-ga isku soo dhajisid waxaad sameynaysaa halkana waa isku xabagaynaysaa kulli midda kale waraaqahan dhaadheer waxaan saa uga dhignay way dhuudhuuban yihiin marka saan u samaysid markaad gudaha san ugu sii dhex samaynaysid waa inay waraaqihii hareeraha iyo kuwan gudahaad ku samaynaysaa kala dhuubnaadaan mar walbana waa inaad maqas haysato haddii ay kaa dheeraadaan si aad u sintid aad u goysid saasaad u samayn doontaa wakaa xabagtana mar walba ku caawinaysa si fiican isugu kaa dhajinaysa wakaa saasuu inoo soo baxay in yar baa u dhiman imika waraaqihii qaybtii kale afar geeska ka dhigaysay jarjaraysay waraaqaha inoo hadhay waa tan qaybahan baa inoo hadhay
saasaad ugu wada dhejinaysaa kulli xabagtaad marinaysaa hareerahana waad ka jaraysaa inta dheeraadka hadda waxaynu bilaabaynaa kuusha saynu ugu sharixi lahayn 4 midh baan ku dhejinaynaa halkaas 4 xabba iyo markaad xabagta saas isugu dhejisid iyo waraaqihii saasay kuu soo baxday ful yar bay noqoto cad dushana waxaad ka saaraysaa kuushii aynu soo midabaysanay ama soo kalaraysanay dahabiga ahayd fulalka yar baan kusoo wada sameynaynaa labada dhinac baan idin tusin labada dhinacna kuushii dheer baan saa ugu dhejinay saas uu soo baxay maasha Allah inta yar markaad check siisatid waraaqaha gurigaaga yaala wax qurux badan ka samaysatid wax walba faa'iido ay leeyihiin runtii haday waraaq tahay haday kartoon tahay hadad baratid wax walba faa'iido leeyahay waad ka faa'iideysanaysaa in yar bay noo harsan hadda waxaan sameynaynaa kartoon baad soo qaadanaysaa xitaa kartoonta inay ka baxsadaan looma baahna inaad ka faa'iideysatid kartoonka waad jarjaraysaa kartoonkan maxay naga caawinayaa la soco kartoonkan xagga dambe inuu kaga dabooleynaa si wixii dekada ugu ekaado labada dhinacna kartoontaas baad ku qiyaasanaysaa mar walba laakiin waxaan kaaga digayaa in iska hubisid qiyaasta hadduu kaa kala dheeraado uu kaa kala marmaroorsame wax dheero fool sisiya buu noqonayaa laakiin haddaad qiyaasta saxdid wax qurux badan oo indhaha soo jiito kuu noqonayaa kartoonkeena waxaynu kusoo shubaynaa rinji kaloo cadaana rinjigaasaad kusoo buufinaysaa waa rinjigii hore in haysanay cadaankiisa saasuu inoo soo baxay yaa odhanaya waa kartoon soo lama moodo wax kale xagga dambe kaga xidhan marada yarna waad u baahantood ku qurxisaa waa taas waa maro yaro aad u qurux badan adigu waxaad haysatid qurux badan sileeda kuugu xidhmayaaba waad ku xidhaysaa kartoonka iyo waraaqihii dhudhubnaa isku soo xidhxidhnayna hot gluugaan marinay halkaa la soco idinmaa tusin hot gluuga isku dhejinay xabagtan kale waxaad isticmaalaysaa marada iyo kartoonka markaad ku xidhaysid marada iyo kartoonka si fiican markaas kugu dabooshid 4 geesba waad kaga xidhaysaa marada yare dhalaalaysa saasuu soo baxay maasha Allah ka waran yaa odhanaya waa kartoon iyo waraaqo yaa odhanaya bal ka waran waxaad u baahan tahay xabagtan imika halka yare dhexaad saa uga marinaysaa waxaad ku marinaysaa si yaro khafiif aad u marinaysaa si xoog uga muuqanaysa ma marinaysin burushkaaga yar khafiif baad ugu marmarinaysaa halka waxaynu uga dan leenahay markaad saa u soo wada marisid dhalaalka baan ku shubaynaa dhalaalka yaraa ee inoogu jira caagada yar wakaas shine yar buu siinaya iyo qurux markaad saa ugu wada shubtid kadarkeeni saasuu ku dhammaystiran yahay maasha Allah tabaarakallah ka baro kana faa'iideyso gurigaaga alaabta waxa kuu yaala kartoon waraaq wax walba wax faa'iido leh baad ka samaysan kartaa maasha Allah gidaarkeeni baan indhaha kusoo siisanay soo sudhanay maalin walba gugashaada mid u eeg ka samayso waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyogan